waxaan salaamayaa ummadda Soomaali oo halkan joogto jamhuuriyadda Turkiya ha ahaato Istanbul meesha aan joogno ama ha noqoto Ankara iyo meelaha kale oo ka dhow waxaan leeyahay waa idin salaamayaa horta salaamta islaamka idin salaamayaa walaalihii Soomaali ahow rag iyo dumar wixii ka yimid xagga Soomaali ama meelaha kale oo dibadaha kale dalalka kale ka yimid waxaan idin leeyahay salaamta islaamka idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabacd dalkan hadee waa adinka ujeeda qof la arkaba wuxuu u yimid waa og yahay meel nabdoon oo diinta iyo walaalnimadana aad iyo aad looga daryeelo ka kul shucuub alislaamiya markii aan u fiirino oo bisifa khaasa Soomaali ahaan markii la yiraahdo waa dal aad iyo aad Soomaali iyo shacbigeed u garab taagan ha noqoto gudaha jamhuuriyadda Turkiya dalka Turkiya ama ha noqoto hatta dalkeena Soomaali wax badan oo aan la iloobi karin ay noo qabteen dawladda Turkiya oo ugu horeeyo madaxweynaheedii Erdogan Tayyip Erdogan jazaahu Allahu khayra maalmihii abaarihiina hayay 2011 2011 laga bilaabo ilaa hadda waa garab istaag oo aan la iloobi karin ayuu noo muujiyay hadday noqon lahayd iqaasa gargaar hadday noqon lahayd xagga waxbarashada hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd tayinta ciidanka iyo tababarkoodii iyo tacliintoodii ama ardayda laga keeno oo dalka Soomaaliya laga keeno halkan ay wax ka bartaan iyo dalka gudihiisa naftiisa ay wax ka bartaan runtii waa wax aan la iloobi karin waxaan isleenahay wuxuu aad iyo aad ugu qayb qaatay binaa albunya التحتية في الصومال oo ha noqoto wadadaha la bixinayo iyo almuhim horumarka Soomaaliya oo dhan ayuu wax weyn ka qaatay hadda ganacsiga iqtisaadka markii la yiraahdo qayb weyn uu ku leeyahay dalkan badcadii laga keeno ama muntajaadkiisa dalka way buuxaan oo meel la arko suuqa suuqa bakaaraha iyo meelahaas waa laga helaa nooc kasta ayagoo leeyihiin oo weliba sicir jaban oo raqiis ah ay ugu yimaadeen Soomaalida taas waxaa daliil u ah in dawladan oo hadda aan joogno halka aan joogno hadda inay u istaagtay Soomaaliya inay wax badan ka caawiso waxaana laga rabaa anaka marka inaan noqono dad garanayo ihsaankaas iyo abaalkaas Soomaalidana waa laga yaqaan runtii qofkii abaal u gala waa abaalkiisa aad iyo aad bay u tixgelisaa waana u gudaa wixii ay karaankeed tahay oo ay sameyn karto inaan abaalkaas aan dareemno aan abaalkaas ugu abaalgudno dawladda Turkiya wax alaal wixii naga aadan anag aan u qaban karno wax weyn oo looga baahan ma jirtay laakiin in anagana deganaashadeeda iyo horumarkeedii waxaan ka qayb qaadan karno aan ka qayb qaadano Soomaaliya runtii meesha ay joogto waa dad muuqda shacbi aad iyo aad amaan u leh oo muuqda oo waxtar leh hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga ama hadday noqon lahayd hatta waxbarka dhinaca diinta islaamka oo quraanka oo kale kamid ah aad iyo aad bay uga amaanan yihiin waxaan leenahay insha Allah anakana hadee ihsaankaas aan ku abaalgudno qofkii wax ku taray waa inaad adigana wax tarto hadaa wax tar weyda hata inaad u duceedo ihsaankiisa abaalkiisana aad u ogaato marka waxaan leenahay Soomaalida halkan joogaan ha ka ilaaliyaano dalkan oo nabdoon oo nalaga soo dhaweeyay in anakana wax qasa iyo balaayo kale inaan ka wadno halaga digtoonaado waxaan u digayaa bisifa khaasa ugu digayaa dhalinyarta oo dalkan ay imaaday oo inay wax bartaan ama wax faa'iideystaan loo keenay inay ashaxumo ay keenaan ama wax dhibaato u keenayo dalka inay keenaan ha ka digtoonaadano waxaan kale ugu digayaa dadkii waxbarasho u yimaaday inay tahriib iyo bilaayo kale ay keenaan taa nafteeda waa ceeb laana sifa lagu keenay waa laga saaciday viisaad ka soo gashay xaq tacliim xaq waxbarasho ay wax tadawur ah marka inaad intii aad baabiido oo yani aad yeesho qof tahriibayo markaas lagu soo qabanayo badda oo baddaas ay ka daadanayaan dadkii dawladii waa ma taxamuli karto arintaas waxaan leenahay hala dadaalo amniga hala ilaaliyo wixii aad u imaaday waxbarashada ah ama horumarka ah ka qayb qaado intaad kari karto hadaad waxba qaban weydana dalkaada ka soo noqo intaasaan leenahay nasal Allah subhanahu wa ta'ala yubarik fi dawlat Turkiya ورئيسا وشعبا وحكومة ونسأل الله أن يبارك فيهم ويبارك في القائمين في هذه الدولة المباركة ويجعلهم إن شاء الله قدوة لغيرهم من المسلمين وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالإحسان إحسانا وبسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا وأن يحفظهم ويرعاهم ويكون لهم عونا
وسندا لما قدموه وسيقدمونه للمسلمين أجمعين وللأمة الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ رئيسها ويحفظ شعبها ويحفظ حكومتها حفظا تاما، وأن يبارك فيهم وفي أهلهم وفي ذراريهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير، وأن يكفينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطاعنين والحاسدين والباغضين. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.